السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسر دوادا channel كينا يا يورا شو وقيمت اللبات شيكادي كن هذين يا هذين شيكادي بقوشار يار يا ولالك شاز زمان شيكادي وحيلين مريسي قيمتي كواد مركي لبادي بقر أي أركين وحبير تقصر كدعية يهبداك انك فوشهن كوكعين gabdhihii qasriga oo ay ugu horeyso gabadhii boqorsheer yaar oo aad u calaysan ayaa waxa uu amar ku bixiyay in la soo qabto gabadhiisa shaariyadihii iyo addoomadii la tuntayba waana la soo qabtay iyadoo dhammaantood kurka laga wada gooyey intaas kuma ekaanin ee boqorsheer yaar wuxuu amar ku bixiyey in habeen kasta gabadh cusub loo soo guuriyo sidiina kurka laga gooyo subxaan allah wixii sidaas xaalku ahaadooba muddo 3 sano kadib waxaa la waayay wax gabadh ah oo gabdhihii waxay isku bedeleen wax la dilay iyo wax cararay wasiirkii u qaabilsanaa boqorka dhanka guurka maalintaas markuu soo waayay wax gabadh ah oo uu dhiso ayuu gurigiisa yimaaday isagoo aad u murugaysan wasiirkaas wuxuu dhalay 2 hablood oo aad u qurux badan midda weyn waxaa la dhihi jiray شهرزاد مدة يلنا جنزيات شهرزيات وحيا هاي القبض متعلمات وحبضنا كبرتي كتب تاريخ يشوكوين كبقردي هوري يورر كوماديني هوري وحانا الله شيرين قبضها شهرزاد اي برتين كبضن بكل كتاب oo ku saabsan taariikhda iyo sheekooyinkii hore shaaziyad waxay ahayd gabar aad u caqli badan waxayna aragtay aabaheed oo wejigiisa murugo ka muuqato waxayna ku dheeray aabbo maxaa kugu dhacay oo aad sidan oo dhan ugu murugaysan tahay markaas ayuu wasiirkii gabadhii u sheegay sida ay u jireen wuxuuna yidhi waxaa layga rabaa inaan caawa boqorka gabar u soo dhiso haddaan u soo dhisi waayena kurka ayaa layga goynaya markaas ayay shaaziyad aabaheed ku dheeday aabbo aniga ii guuri 2 mid ayay noqonaysaa in la dilo ama inaan madax furasho u noqdo gabdho badan oo halaagsami lahaa markaas ayuu wasiirkii waan ku cabsanayaa ee naftaada saalisa gelinin markaas ayay ku tidhi waan ku qasbanahay middaas oo waa lagama maarmaan ii guuri markaas ayuu wuxuu ku yidhi waxaan kaaga cabsanayaa inay kugu dhacaan wixii ku dhacay dibigii iyo dameerkii uu ninkii beeralayda lahaa markaas ayay tiri oo maxaa ku dhacay aabbow sheekada halkaas way inooga sii soconaysaa xiisuhuna maalinta ka dambeeya wuu sii kordhayaa insha allahu tacaala channelka inoo subscribe gareeya si aad ula socotaan sheekada inteeda kale iyo qaybaha dambe insha allahu tacaala wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu